Waxaana wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walbo aad joogtaan. Waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dunida oo aynu daaha kaga rogi doono ciidamada Ruushka oo duqeyn culus la beegsaday xarun military oo macallimiin ajnabi ah ay ka howlgalayeen. Howlgallada ciidamada Ruushka oo meelihii ugu adkaa maraya iyo magaalooyin waaweyn oo ay go'doomiyeen. Waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada culus ee ka soconaya wadankaasi. Sidoo kalena daawadayaal barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dowladda Turkiga oo dib u celisay 2 markab oo Ruusha kaas oo la sheegay inuu calooshood u shaqaystayaal ka soo qaaday wadanka Syria. Qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin haynaa ee daawadayaal mar kale soo dhawaada. Wahagag daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar sidoo kale furagan balaalka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid. Aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyay dagaalada culus ee ka soconaya wadanka Ukraine. Ciidamada dowladda Ruushka ayaa lagu soo waramayaa inay xoojiyeen howlgallada ka dhanka ah Ukraine waxaana ay ku sii socdaan magaalooyin waaweyn iyadoo dagaaladii ugu cuslaa ay dhaceen xalay ilaa iyo maanta waa berigii. Sida wararku ay sheegayaan waxaa jira khasaare kala duwan oo ka soo gaaray ciidamada wadanka Ukraine. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ciidamada wadanka Ruushku ay duqeyn culus la beegsadeen saldhig military oo ay macallimiin ajnabi ah ka howlgalaan. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in 8 gantaal ay Ruushka ku garaaceen xarunta caalamiga ah ee nabad ilaalinta oo 10 kiiloomitir ama 6 meel u jirta xuduudda Poland. Sidoo kalena waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada wadanka Ruushka iyo kooxaha gooni ugoosadka ay go'doomiyeen magaalada Mariupol. Waxaana sidoo kale magaaladaasi la sheegayaa hadda ciidamada Ukraine inay bilaabeen inay si tartiib uga baxaan xilli magaaladaasi dhibaatadii ugu ba'aneed ay ka jirto dad rayidna ay magaaladaasi ku go'doonsan yihiin. Horey dowladda Ruushka waxay u sheegtay inay diyaar u tahay magaaladaasi rayidka inay isaga baxaan loona furayo wadooyin hase ahaatee ciidamada Ukraine oo difaac ka dhiganaya rayidka ayaa diiday in shacabka halkaasi ay ka baxaan waana sababta keentay in shacabkii ugu badnaa oo kumanaan ah ay ku dhintaan magaaladaasi. Waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in burbur xoogan uu soo gaaray magaalada hase ahaatee hadda saraakiisha Ruushka iyo kuwa gooni ugoosadka waxa ay tilmaamayaan inay magaalada oo idil isku hareereeyeen ayna doonayaan saacadaha soo aadan inay gudaha u galaan magaaladaasi. Dhinaca kalena ilaalada xuduudaha Ukraine waxa ay sheegeen in 96,000 oo qof ay 24 saac la soo dhaafay isaga baxeen wadankaasi iyagoo u tallaabay dhanka Poland. dhinaca kalena wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in 3687 xarumo ciidan oo Ukraine ah la burburiyay tan iyo markii uu bilowday howlgalka militariga ee Ukraine. Sidoo kale waxa ay sheegeen in la burburiyay 99 miigaga 128 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn 1194 taangiya iyo sidoo kale baabuurta gaashaaman 121 gantaale ah iyo 443 madaafiicda hoobiyaha loo yaqaano. Halka Ingiriiskana ay sheegayso wasaaraddiisa difaaca in ciidamada Ruushku ay isku dayaan in ay isku hareereeyaan ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi xilli ay xaaladda ka sii darayso. Sidoo kalena wasaaraddu waxa ay tilmaantay in ciidamada Ruushka oo ka soo baxay dhanka Crimea ay isku dayeen in ay ka gudbaan halka lagu magacaabo Mykolaiv oo ay galaan dhanka galbeedka Odessa. Ciidamada Ukraine waxa ay sii wadaan baa la yiri iska caabin adag. Ruushkuna waxa uu la kulmayaa iska caabintaasi waa sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee wadanka Ingiriiska. Geesta kalena madaxweynaha wadanka Ukraine ayaa waxa uu soo saaray hanjabaado culus iyo sidoo kale digniino ku wajahan dhanka Ruushka. Waxa uu u hanjabay cid walba oo wada shaqeyn ay kala dhaxeyso Ruushka iyo sidoo kale taageerayaasha Ruushka ee ku sugan gudaha wadanka Ukraine. Zelensky waxa uu intaasi ku daray fariin muuqaal ah oo uu baahiyay in kuwa lagu sababeeyay dalabaadka ka yimid gumeystayaasha Ruushka ay saxiixeen xukunkooda waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in talaab adag laga qaadi doono cid walba oo taageero u muujisa Ruushka waxaana uu tilmaamay in mar un laga adkaan doono waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kalena xogayaha guud ee ururka NATO waxa uu saadaaliyay in dagaalka uu sii xoogaysan doono musiibo bini'aadanimana ay ka sii dari doonto wadanka Ukraine. Waxa uu ku sheegay bayaan uu maanta soo saaray waxaan aragnaa cabsida sii socota iyo sidoo kale tirada dhimashada rayidka iyo burburka aan loo baahnayn ee ay geysanayaan ciidamada Ruushka. Dadka reer Ukraine ayaa iska caabinaya si geesinimo leh ayay uga hortagayaan ciidamada Ruushka laakiin maalmaha soo socda waxay u badan tahay in marqaati aanu ka noqono musiibo aad u daran. dhanka kalena la taliyaha madaxweynaha Ukraine waxa uu yiri wax kasta oo hindise ah oo lagu qabanayo aftida magaalooyinkeena la haysto waa wax aan faa'iido lahayn. Ruushku wuxuu bixin doonaa wax walba oo dhacay
waxaanan dacweyn doonaa kuwa la shaqeeya. geesta kalena haddii aynu eegno magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine ayaa lagu soo waramayaa in gantaalo culus lagu garaacay oo ciidamada Ruushka ay ku garaaceen. warbaahinta gudaha waxa ay sheegayaan in magaalada Lviv oo 70 kilomitir u jirta xuduudda Poland lagu garaacay dhowr gantaal. bogga internetka ee Kyiv News Portal oo ah bog madax bannaan waxa uu sheegay inay maqleen qaraxyo dhowr ah oo iyagu ka kala dhacay Lviv iyo Kherson, waxaana ay sheegeen in Lviv lagu duqeeyay gantaalada Ruushka, halka wariye wakaaladda wararka Jarmalka ka tirsan uu isna sheegayo in qaraxyadan sidoo kale laga maqlayo dhawaqooda gudaha wadanka Poland. dagaaladu waxa ay yihiin kuwo aad u xoogan, islamarkaana waxaa xilli walba la filan karaa inay kasii daraan. ciidamada Ruushkana markan waxay usoo jeesteen inay gacanta ku dhigaan deegaanada iyo magaalooyinka waaweyn ee wadanka Ukraine. weli daawadayaal, barnaamijkeena xogta dunida ayaa daawanaysaane markana bal aynu eegno. dowladda Turkiga waxa ay diiday in marinadeeda muhiimka ah ay maraan 2 markab dagaal oo uu leeyahay wadanka Ruushka, kuwaas oo la sheegay inay calooshoodu shaqaystayaal ka keeneen dhanka wadanka Syria. waa halkani meel kale oo ay iskaga hor imaan doonaan danaha Turkiga iyo Ruushka. markii Ruushka uu ku dhawaaqay in dagaalyahanadii ugu horeeyay ee calooshoodu shaqaystayaal Suuriyaana uu ka soo daabulay halkaasi una soo daabulaya dalka Ukraine, laakiin Ruushka ma lahan waddo kale oo uu mariyo calooshoodu shaqaystayaasha ee Suuriya kaliya marka laga reebo Bosphorus ee Turkiga uu maamulo oo uu soo mariyo ilaa badda madow ilaa iyo Yurub. Turkiga ayaa goor sii horeysay marinkani wuxuu ka xadiday maraakiibta dagaalka ee Ruushka. nasiib wanaag, Turkiga ma xadidi karo maraakiibta Ruushka ee ku sugan badda Mediterranean-ka marka ay ku laabanayaan Ruushka, balse maraakiibtaasi ku laabta dalkooda mar kale kuma laaban karaan Suuriya iyo Mediterranean-ka. Ruushkana ma doonayo inuu faarujiyo badda Mediterranean-ka. wargeyska WhatsApp ayaa waxa uu sheegay in Turkiga uu joojiyay 2 markab oo waday dagaalyahano Suuriyaana, una diiday in uu fasaxo in marinkaasi maraan kuwaas oo doonayay inay ka yimaadaan Suuriya. wuxuuna Turkiga ku andacoonayaa in dagaalyahanada shisheeye ee sii mara marinkaasi ay ka dhigan yihiin diyaarin dagaal. waxa kaliya ee Ruushka hadda haysto ayaa ah in diyaarado ku daabula dagaalyahanada, balse dhibaatada wuxuu Ruushka kala kulmayaa cunaqabateynta hawada oo aad u baahsan. Ruushku kama aanu jawaabin tallaabada cusub ee Turkiga ku xayray in dagaalyahanada ka imaanaya wadanka Suuriya ee lagu daabulayo maraakiibta ay maraan marinkani. si kastaba, waxaa kordhay dadaalada Ruushka uu ku doonayo inuu ku daabulo kooxo dagaalyahano ah oo uu ka qaado Suuriya oo uu geeyo bariga Yurub. bal aan tagno dhaqdhaqaaqyada Ruushka ka socda Suuriya. iyada oo dagaalka Ruushku ku hayo Ukraine uu galay 7-kii saddexaad, ayaa haddana Putin wuxuu Jimcihii ogolaaday in dagaalyahano mutadawiciin ah laga keeno bariga dhexe, gaar ahaan Suuriya. way caddahay in Suuriya ay tahay barkad qani ku ah dagaalyahanada shisheeye ah oo ku soo jiidato dagaalada ka baxsan dalkaasi. dhaqdhaqaaqa militari Ruushka ayaa si weyn uga socda bariga dhexe, halkaas oo faragelin Ruushka ka bilaabay 2015 si ay u caawiyaan madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, si ay uga caawiyaan inuu ku guuleysto dagaalka sokeeye ee 11 sano jirsaday. Jimcihii, wasiirka difaaca Ruushka wuxuu ka hadlay in ka badan 16,000 oo codsi oo horay uga yimid bariga dhexe, inkasta oo aanu cayimin wadamada ay kala yihiin. dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ee Suuriya ayaa sheegay in Ruushka dhowaan uu bilaabay dadaalada uu Suuriya kaga qoranayo dagaalyahano uu geeyo Ukraine, laakiin ilaa hadda waxaa la qiyaasayaa in baaxadda dadaalkaasi uu aad u yaryahay. dagaalka dheeraada ee ka socda Suuriya ayaa horseeday in ay soo baxaan ciidamo badan oo hubeysan, maleeshiyaad iyo sidoo kale calooshoodu shaqaystayaal oo ka kala socda dhammaan dhinacyada isku haya Suuriya. kooxaha dabadhilifka ah ee taageera Ruushka iyo Suuriya waxaa ugu caansan kuwa loogu yeero ciidanka difaaca qaranka, dagaalyahanada maleeshiyaadka ah ee Kurdistan iyo sidoo kale kuwa ka goostay ciidamada oo leh xirfadda dagaalka magaalooyinka iyo jabhadaha. waxaa kale oo ka mid ah cutubyo kale oo uu caawiyo Ruushka iyo maleeshiyaad ka dhinaca dagaalama ciidamada Suuriya. haddii loo baahdo, Ruushka si dhaqsi ah ayuu u qori karaa xubnahan. ciidamadan sidoo kale waxaa ku biiray dagaalyahano Iiraan taageerto oo ka kala yimid dalalka Ciraaq, Lubnaan iyo meelo kale oo gobolka ah. kaliya ma aysan la dagaalamin fallaagada Suuriya ee sidoo kale waxa ay gacan ka geysteen la dagaalanka kooxaha xagjiriinta kadib markii ay qabsadeen qaybo badan oo Ciraaq iyo Suuriya ah sanadkii 2014. kumanaan calooshoodu shaqaystayaal ah oo ka socda shirkadaha ee qandaraaslayaasha gaarka ah ee Ruushka ee Wagner Group ayaa sidoo kale loo abaabulay Suuriya, sida uu sheegay macadka bariga dhexe. marka loo eego darxumada dhaqaalaha ee Suuriya, tani ma noqon doonto markii ugu horeysay oo dagaalyahano Suuriyaan ah loo qoro colaad dibadda ah.
turkiga oo xubin kale oo weyn ah oo ku sugan suuriya ayaa isna waxa uu shaqaaleysiiyey calooshad u shaqaystayaal suuriyaan ah si ay u xoojiyaan dagaalada ka dhacay liibiya iyo qowqaas. kuwaasi waxaa ka mid ah iska horimaadadii ka dhacay azerbaijan iyo liibiya, halkaas oo joogitaanka kumanaan kun oo dagaalyahano shisheeye ah oo turkiga uu tababaray oo ay ku jiraan kuwo ka socda suuriya, suudaan iyo turkiga laftigiisa ay weli caqabad ku yihiin nabadda gobolka. cadeemaha ayaa hadda bilowday qoritaanka dagaalyahano suuryaana gaar ahaan meelaha dowladdu ay maamusho. cumar abuleyla oo ah dhaqdhaqaaq fadhigiisu yahay yurub oo la socda xaaladda suuriya waxa uu sheegay in ilaa hadda 10 kun oo dagaalyahano ah oo gobolka ah ay diyaar yihiin. wuxuu ku eedeeyay ruushka in uu siiyo mutadawiciinta ka socda bariga dhexe 200 ilaa 300 si ay u caawiyaan dagaalka Ukraine. qaar ka mid ah kormeerayaasha iyo dhaqdhaqaaqayaasha suuriya ayaa tilmaamay in shaqaaleyn kasta oo socota ay inta badan calaamad u tahay in ilaa hadda ay jirto ilaa heerarkoodii ugu horeeyay dhaqdhaqaaqyadaasi. axmed al axmed oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa mucaaradka waqooyi galbeed ee suuriya waxa uu sheegay in magaalada idri ee waqooyiga ee dowladdu maamusho ruushku uu ka codsaday saraakiisha sarsare ee ciidamada inay diyaariyaan dhalinyaro waaye arag ah dagaalada magaalooyinka kuwaas oo diyaar u ah inay tagaan Ukraine. wuxuu sheegay in ilaa iyo 3 kun oo qof iska diiwaangeliyeen koonfurta suuriya. wakaaladda wararka AP ayaa sidoo kale sheegtay isla warbixintani dagaalyahanada ee xilligan khibradda u leh dagaalka magaalooyinka suuriya xaaladaha qaarkood ayaa ah mid wax yar ka tari karta xaaladda Ukraine. si kastaba ha ahaatee dagaalyahanada ajaanibta ah ayaa had iyo jeer gacan sare ka geysta goobaha lagu dagaalamo sida dagaalkii lagula jiray kooxda la baxday dowladda islaamka. khubarada suuriya ayaa sidoo kale su-aal geliyey faa'iidada ay leeyihiin shaqaaleysiinta bariga dhexe ee Ukraine. iyagu kuma hadlaan luqadda mana yaqaanaan dhulka ama xaaladda cimileed oo ah mid aad u qabow. si kastaba ha noqotee haddii dagaalka uu sii socdo oo ciidamada ruushku ay daciifaan dagaalyahanada ajnabiga ah waxay noqon doonaan doorasho soo jiidasho leh. daawadaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan barnaamijkeena xogta dunida oo naga intaas barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmin doona nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.